بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين maanta oo bisha tahay 18 bisha sagaalaad 2019 oo ah maalin ka mid ah academiga yeerka cusub ee 2019 2020 inagoo ku sugan madasha sharafta badan ee gudoomiyaheenu ku qaabilo dadka xaqiisa ku weyn ee xafiiskiisa qaaska ah ee director mudane maxamed aadan askar mudane maamulahayna sharafta leh maamul cabdiraxiin macalinkiina inagu qaalay marna inoo ah waalidkiin Salaaman Baashe Muuse Cawad ardaydan waxa weeyaan hortiin fadhiyo ardaydii sanad dugsiyeedkii hore tagay guulaha wax ku oolka ah ee soo celiyay rajada ummadeena ama bulshadana ka qabaan nidaamka waxbarashada inoo barigii hore ahaa mid ku saleysan hebel baa A keenay hebel baa B keenay inuu bedelnay inay wax soo saareen yeelano iyagoo maamula markii ugu horeysay isku dhan ardaydeena waxyeelada soo gaadhay maantana halkan ay fadhiyaan ilaa meelka iyagoo caafimaad qaba waxaan maanta kulankeenu daaran yahay ka koowaad inaynu sanad dugsiyeedkana bal wixii labaad laga filayay ardaydeena iyo inaga aynu haynay hawlaha iska wax u qabsaa inaan maanta noo wanqashaan barnaamijyada doorkan oo ah barnaamijkii hibada ardayga oo sidiisa aanu wadno oo bariga hore kootuux ku xidhnay arday kooban baayo kuwana imagnakin la baahiyo iskuulka oo dhana laakiin kuwan waxay noqdeen ardaydii sanad ay tacab gelnay dhaqaale iyo maskax bay naga baxeen waxay noqdeen agaasimayaal hoos way noo agaasimayaan laakiin ardayda waxba ma dheera hoos way aragnimo yar bay leeyihiin noo agaasimayaan marka waxaan doonaynaa barnaamijkiibada iyo imaga furan inay mar labaad dadar labaad gelino waxa kale oo inagu cusub barnaamij library-ga xagga library-ga oo sanadka aad moodayso inaan xoog ugu howlgelin library-ga maamune howliis waxa ka mid ah ardaydeenu ama mujtamaca Soomaaliyeed ma yaqaanaan buugan iyo qiimaha aad leeyahay laba buugu macalinkooda ku arkaan ama iska jeclaadaan un bay wataan marka barnaamijka laba isku jira ardadan iyaga soo aqrinaya buugan dibeed bay ka qabanayaan marka tabana tala bixin ujeedada ugu weyn la leeyahay wax weeyaan wacyigelin inaan ku wacyigelino ardadeena buugta tayada leh ee yaala library-ga oo runtii buugaag badan meesha inoo yaalaan mar labaad waxa jira maamule macallimiinta ayaan kolba macallin baan ku casuumnaa way ardayga buuga ma yaqaanba waxaan ku bilaabnay macalinkeena Englishka Ahmed Kinaati oo markuu ardayda ku wacyigeliyay wixii ka dambeeyay buugaagta Englishka suuqooda xaamid buu noqday mudane maamule waxaan kaloo library ku kordhinay barigii hore inamadii hablaha waxay isku ahay isku shift imagu waan kala duwanayno dhaqankeena diinta ilaalinayno iyo ardayda farabadatay iyo meeshayna laba waxaan kaloo ku soo kordhinay library-ga in hadda lagu buugaagta oo dhan hanti noqdaan diiwaan gashan oo buug la geliyay waxaan kaloo mudan maamulay ka codsanaynaa wanaaga aad noo muujisay ee sanadkii dhawaa ilaaha ka abaalmariye runtii waa maamulay noo soo jeeda haddaan 12 habeenimo la hadlaan groupkii baa wax wada wuu kaca runtii maamuleen waxa uu maamulo ka go'an horumarinta ardayda maahan xagan akhlaaqiyadka kaliya inaad hal abuur la timaadaan maamule imagana sanduuqyada dhaqaalaha noo fura ardaydiina waa ka kugu soo dhaweynaa ku soo dhawaada bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya wa din wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman kathiran kabira amma ba'd assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh marka ugu horeysa waxaan u mahadnaqaynaa Ilaahay subhanahu wa ta'ala inoo ogolaaday inaan isugu nimaadno goobtan inaga oo runtii ka tashanayna oo ka wada hadlayna oo kor u qaadayna wixii aynu u nimi dugsiga sare ee Al-Irshad Secondary oo aqoonta waxaan runtii bacdallahi aad iyo aad ugu mahadnaqayaa macallin Cabdidaayim Xuseen Awdiiriye iyo Cabdi Fataax Ismaaciil oo Cabdi iyo teamkooda runtii oo aan oran karo waxa ay runtii la yimaadeen fikrad aad iyo aad u cajiib ah
oo de waxbarashada waxaynu la midnahay iskuullada sida iskuullada ina la midkiiba waxbarashada u wadaan ee ay u runtii kobciyaan kala mid baynu nahay runtii waxa aan la dheernahay oo aad samayseen wanaag aad u ballaaran oo aqoontii aan wadnaba waxa u bedesheen practical waxaan isna ku darayaa mahadnaqa abwaankeenna weyn Salabaan Baasha Muuse oo runtii aan oran karo waa udubdhaxaadka dugsiga haddii ay tala tahay haddii ay tusaale tahay iyo haddii ay aqoon tahay iyo dhaqanba dhinac walba waa macallin runtii mar walba inala ag taagan aqoontiisa iyo waayo aragnimadiisa mar walba inuu ku beeriyo dugsiga sare Al-Irshaad Secondary jazakallahu khairan abwan Salabaan aad baan kaaga mahadnaqaynaa Cabdidaahim runtii wuxuu xusay wuxuu yiri maamuluhu mar walba waa noo heegano uu runtii ninkay dhaqaajiya ama runtii keena oo sabab u noqda in wax kasta oo runtii la wado oo uu wado tiimkaasi uu hogaamiyaha ka yahay anaga istaago wallahi isaga sabab ah waxaan aad u xasuustaa maalin anagoo aanu qolo shir ku jirno waliba arrin adag ku jirno ayuu isoo garaacay markaasaan ka qabtay saan wada hadalay haddana uu igu soo celiyay markaasaan ka qabtay naga daabirahaniya Cabdiraxmaan telefoonka oo noo wada hawl adag baynu ku jirnaa waxaan rabnaa hawshan aynu wadno ta iga muhiimsani wallahi waa tanaan ku wari waa nin wada baan ku wari hawshii anigu aan lahaa ay ahayd inaan wado nin wada weeyaan saala ajligeed inaan qabtaa waa ugu waajib baan ku wari aad iyo aad baan uga mahad celinayaa macallin Cabdidaahim iskuulkeena runtii waxa uu marayaa sanadka halkii ugu sareysay qiimadii ugu sareysay inta uu furnaa uu gaaray ayuu marayaa waxyaabaha runtii soo gaarsiiyay qadarta Ilaahay ka sokow iyo qoraalka Rabbi ka sokow waxa koow ka ah barnaamijka idinku hoggaanka ka tiin runtii waxaan runtii wareysanayay ardayda khaasatan markii iskuulku uu soo buuxsamayay baa waxaan weydiinayay maxaad iskuulkan u timi aad soo dooratay wuu buuxay raal naga ahada baan lahaa moogtahay marka waalidka iyo ardaygaba waxay sameynayaan baryo in la qoro iskuuladu way badan yihiin la midka hay wuu buuxsamay ardaygu iskuulku u furay laakiin wuu buuxsamay oo dadkii loogu talagalay runtii uu gaaray way baad maartay ila xad kale doonaysaan wallahi waxaan iskuulkan ku soo dooranay oo ku doonaynaa bay yiraahdeen waxa uu leeyahay science labki waxa uu leeyahay library-gi waxa uu leeyahay macallimiin u jabanoo hawsha runtii qabanaya miyaadii shay ma timaadano dawrkiisa aanu haynaa bay yiraahdeen runtii iskuulka halka uu gaaray bacdallahi cidda loo tirinaya waa groupkiina weey aad iyo aad baan kaga mahadnaqayaa waxaan leeyahay jazaakumullahu khayran sidaas yani in meel la gaaro way fududahay in runtii halka la joogteeyo oo halka ku sugnaada waa wax adag runtii waxa labaad aad ii farax gelinaya halka iskuulkeenu gaaray inuu runtii ka sii fogaado oo meel ka sii fog uu gaaro abaabulkeedii baa runtii wadaan iyo qorshaheedii oo ah in idinku sida uu sheegay macallin Cabdidaahim aan noqotaan agaasimayaashii talabixiyaashii hogaamiyayaashii doonayay inaanay isku koobin kaliya aqoontii ay barteen iyo horumarka ay gaareen raba inay la wadaagaan ardaydoodii library-ga tahay iskuuladu way leeyihiin iskuulada badan baa runtii jira oo library leh oo science lab leh oo computer lab oo yari han filay horta iskuulada leh intaan ka ogahay computer lab school dhiga oo runtii waxa la sheegay ammaan hadii aanan qaldanayn iskuulka ammaan la yiraahdo iyagoo leh waxa soo dhan waxa ay sheegaan macallimiinta qaar iskuulada ka shaqeeya ama ardayda qaar iskuulada dhigtaa in uu dhasgalay buugtoodii oo aan active ahayn in buugta la akhriyo ama science lab-ka lagu sameeyo tijaabooyin inagu waxaan dheernay runtii isagoo Ilaahay uu ina siiyay baa waxaynu u bedelay si practical ah aad iyo aad baan ku mahadnaqayaa hawsha fiican ee aqabateen waxaan leeyahay fi miisaan alxasanaat Allah idinku daro qofkuna waxa Soomaalidu tiraahdaa waari maysidee war ha ka haro iskuulkan kullay waynu ka tagi doonaa ama geeri baa naga kaxayn doonta ama waxa naga kaxayn doonta de horumar insha Allah ta'ala Ilaahay islaamaha xidhada Ilaahay la waari maayo wayna daaye waxaan jecelahay in kaga tagtaan taariikh fiican
oo timeka aynu wadna ah allah inoo daayimiyo barnaamijka runtii wadaan imakana waa barnaamij runtii aad iyo aad ii farax geliyay gudoomiyahana suuraysan maalin dhaweydo bal cabdidaayime tiimkiisa iga waran buu igu yiri waxaan uga sheekeeyay barnaamijkan si hordhaca مثلا e-learning soo maahayn iyo qaabka la rabo in uu hawl galo ardayda library-ga way soo galaysaa khaasatan waranka kale aad waxyaabo xiiseynayaan weeyaan ha soo galay waxa laga yaabaa inuu ku dawaqo halkeed kaga hagaagtaa runtii barnaamij aad iyo aad wax uga taraya weeyaan barnaamijkan aad soo wadan Allah idin fududeeyo in ardaygu wuxuu heli doonaa meel uu ku soo hagaago buugga uu akhrisanayo iyo waxa uu ku xulanayo buugga akhriskiisa iyo halka uu ka tixraacayo waxa soo dhan runtii waa wax idinkana faa'iido idin ah adduun iyo aakhiraba ardayga iskuulka jooga ee wal khaasatan cusub ee raba inuu maartay dadaalana wax tarfada badan oo aad iyo aad baan idin hambalyeynaya fajazaakumullahu khayran assalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh الله الرحمن الرحيم الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على رسول الله المصطفى وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ده وحا لا إله إلا الله إنه قرأنا أولا وأخيرا ما هذا وحا لا إلهي وحيد دنبال لما هذه هو خوغا شحاد لو قد يبي تاوين إلهي لإيها وما الله قرأي مركا حقا انت قرأ راها لقى سوق قادنا يو وحا لا سكول كيل سكول كان مركا laga yimaadana waxa la garab kan teamka Cabdi Daa'im watayo Cabdi Fataax Daa'imka aan soo hor fadhiya aad iyo aad baan idin mahadinaynaa waxa team da'yar laakiin in badan aan ku faanay laakiin da'yar hadana haduu inta ka badan sii jirana in badan oo ka badan inta lagu faanay doonaan dilay ka dhigo anigu wax badan oran maayo horta waladan hambalyeynayna wanu idin dhiirigelinaa mar walba waa intaasun barnaamijka library-gu baan anigu in yar ka oranay waxa saakay xasuusay tani annagoo arday yar yar waxa naloo sameeyay bari barnaamij la qara'tu laka alkitab baa loo jiray qara'tu laka alkitab waa maxay library dhan oo saasoo kale oo buuxaba lagaaga dhiibaya book sida maanta ardayda qaar badan inuu qoran yihiin inuu soo jeedin doonaan book ardaygu wuxuu ku maqnaanayaa maalmo haddii adigu aad akhriyo wax laga yaabo inuu ka qaato bil isagoo ka kala go'ay waliba qofka reader-ka khatarta ah haddii kale inuu ka kala go'aaba laga yaabo laakiin ardaygan waa arday xil la saaray wuxuu ku soo akhriyaa muddo gaaban nuxurkiisa uu soo aruurinaya dawadeedna intuu saa u soo fadhiistaa buu jeedinaya wuxuu kuugu jeedinaya wax laga yaabaa 2 saacadood gudahood hadduu de buug aad u weyn haddii kala saacad iyo badh buuggii oo bilow ilaa dhammaad aad nuxurkiisa isu ku dhiibaya hadhowna niqaash sida maanta kala ayaa la gelaya su'aalaha laga weydiinaya dhowr waxba qofku helaya aqoontii oo si kooban u helo waa marka kooban inuu noqonayo marka labaad qof wax jeedin karo hibadaasina soo baxayso waa marka labaad inuu garto oo barto oo mumaaraso ku sameeyo bari ka maalinta mas'uuliyiin iyo madaxda wada rajaynaysan inaad noqotaan niman wareeyaalo microphone dheer afka ka gelinaya idin imanaya waxaan ku weydiinaa sida wuxuu qofku baranaya qaabka wax looga jawaabo dulqaadka loo yeesho 100 tababar baa isku jira barnaamijka aniga igande imka dadka odayga baan anigoo yar ba barnaamijkan loo sameeyay waxa ii xigtay maanta masha Allah in aad weyn aad magaranaysa la timaadeen marka runtii barnaamijkan waa barnaamij qaaliya wuxuu idin kala baraya kutubtu iyo buugaagtu si u kala importisan tahay hatta marka waxaad baranaysaa qoraayada nin waliba fiilka uu ku yahay topka waad raadinaysaa waxaad noqonaysaa idinka waxaad noqon doontaa qof walba library socona oo isaga wax la weydiiyo oo caynkaasaan doonaya fiilka inaan wax ka akhriye maxaan yeelaa la oranaya waxaad akhridaa ninka hebel la yiraahdo qoro magaciisa qoraaga ka buugga hebel la yiraahdo oo isagu ka tala bixiyo isagoo halkaas ka soconayna isagoo fadhiin meel buugna eegi marka aad baan idin hambalyeynaya barnaamijkan aad iyo aad ayaan ugu mahadinayaa macallin Cabdi Daa'im aniga xusuusta gaar kan idin sheegana uu ii sameeynayaaba marka barnaamijkaas oo wada Allah ya baarakum guul baan idin rajaynaynaa assalaamu alaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh maamulaha guud ee dugsiga Irshaad ana gudoomiyaha director aid ee hay'adda Somaliland mudane gudoomiye barnaamijkii wan qashi wan dhameynay oo waxa loo wanqarayay
extra curriculumka aanu qabanayno sano dugsiyeedka cusub ee 2019-2020 marka barnaamijkaasi mid waa nagu ogeyn oo aan ku caanamaalnay waxa weeye barnaamijka tijaabooyinka ka waanu laba laabnay oo waxa laga dhigay mid ay ardaydu u sameeyeen gudoomiye ardaydana waxay noqonayaan waa sanad tacab ay naga galo way noo agaasimeen barnaamijka waxaan gudoomiye ku soo darnay barnaamijka barashada buugaagta library oo runtii sanad dugsiyeedkan ay yahay in aanu kor u qaadno wacyigelinta buugan ardayda inta badan buugaagta meesha yaala ka badan gaari 1500 buug ardayda inta badan ma taqaan dhowr buug bay ku egyihiin barnaamijkani waxaan sameynay laba qaybood qayb waxa sameynaya ardayda oo imika nala daawan doonta waqtigaaga iyagoo waqtiga qayb kamid ah siin doonto barnaamijkana macallimiinta wado waan ku soo dhaweynaa library-ga waxay ka sheegeen buugga ugu wanaagsan bismillaah imika teamkan baa teamka buugga soo jeedinayo laba hab bay u jeedinayaan marka hore waxa gasti ah oo buuggan jeedinayo qani oo muddo waxa haystay kooban wiiga ay ku soo akhrisay buuggan la yiraahdo Food for Today oo runtii aad adu garanayso halkii laga keenay oo intaana naga warami doonto qoladan waxa way discussion-kay ka qayb qaadanayaan su'aalo weydiinayaan ardaydana waxaan u warnimo waa teamkii hibada ardayda ee guuleystayaasha ahaa waa inta barnaamijka markaan dhameynoon baad kelmadaada ku soo xiri doontaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh laakiin waxay shirarba wasaaradda waxa laga sugayo marka waxaan doonayay inaan barnaamijkana runtii inaan ka maqnaado ma ahayn aad iyo aad baan runtii ugu faraxsanahay alxamdulilah rabbil caalamiin ilaahay baa runtii mahad iskale oo ugu mahadnaqayaa marka labaad runtii waxaan ugu mahadnaqayaa maamulka iyo macallimiinta barnaamijkan isku soo agaasimay ثالثاً waxaan runtii ugu mahadnaqayaa ardayda maanta halkan fadhida aan oran karo waa arday runtii xul ah oo tusaale ah oo aqoonta aynu muxuu ahaa ay xambaarsan yihiin iyo qaabka intii yareed nimka dhageysanayay runtii qaabkaad wuxuu wadeen yani mala inay arday wadanka wax ku baratayba oo meel kale muxuu ahaa meel kale inay joogo ka anna baad moodisay runtii xaqiiqatan marka waxa walaalayaa arday ila tahay ardaydii baaditiin arintan imaka aad wadaan waa arin dadka waxa arintan ikhtiraca ama wadaha iyo jeeraale dad aan age-kiina aan ahayn laakiin age-ku ma aha inta qofku jiray namba bari buugan akhriya wuxuu lahaa haddaad buug akhridid buu yidhi buuggaasi ninkaasi waxa laga yaabaa uu yidhi intuu qorayay inay ahayd marba ku jiray diyaarinteedii intaasoo sannadood marka buuggan wuxuu ninkaasi qoray مثلا 60 jir qofkii qoray ama inantii qortay maanta 60 jir ahayd macnaheedu 60 sannadood oo khibrad cimrigaagii ayaad ku dartaa 60 sannadood ayaad ku dartay haddaad mid kale akhrido inta in lag bad ku dartay haddaad mid kale akhrido inta in lag bad ku dartay dabeetana waa maxay waxa aad jirtaa ma aha inaad 30 jir tahay ama 40 jir tahay ama 25 jir tahay laakiin waxaad jirtaa intaasoo sannadood hadba waayo khibradda iyo cilmiga aad xambaarsan tahay baa intaas sidaa kaa dhigay runtii mid waa mide waxaan kelmadaas waxaan saa u leeyahay waa akhriska buugga iyo in wax la akhriyo yani wanaagga ay leedahay aqoontaadii iyo khibraddaadii iyo aragnimadaadii ayaad waxaad ku dartay number of years aanad noolayn adigu ayaad ku dartay marka inaad wax akhridaan ana waxaan akhriyo qof kasta wax akhriyo idinkala qayb galno naadigaasi aad samayseen wax akhriska membership inaanu ka noqono anaga lafteedu intaan kitaab soo akhrino aanu idii soo qadino su'aalana weydiisaan
insha allah qayb baan ka noqon doonaa bidnida kale arinta kale kelmadayda kale waxa weeyaan maanta iyo kitaabka maanta kitaabkan maanta la yiri food for today horta alxamdulillah buugaagtan Mareykan baa laga keenay ilaa khayr siiyo niman aqoon-yahana reer Somaliland ayaa inoo keenay nin la yiraahdo Maxamed Fariid oo runtii ayaa buugaagtan buugaag hadiyad inoogu keenay ay ku jireen muxuu ahaa reer Boorama aad iyo aad baan runtii maanta in moogtahay waxaan hadaan waxba akhriin waxaad noqonaysaa dameer melabsida كمثل الحمار يحمل أسفارا وايو ده ما قرينيsid wuxuu yahay marka intii aan joogay aniga laftaydu ma akhrin kitaabkan ومحوها لكن ما أنت مركا أي قني أخري waxaan imaka ay ugu abuurtay baahi ah buugi inaan akhriyo waayo diimadu waxa weeye dadkeena Soomaaliyeed ثقافة أقون ثقافة عنتدة من نقان أما وحلو يقانو فود ساينسكا علم الأطعمة أكتنا من نقانو منه هذا نولش جيبي جدا هو عنتو نولش جيبي هذا الشكل إذا كحماته وريرك الشكل كحنتها واحد تستي نولش لا ده هاي ما جرت مين هاي كاي هتي محوها واحد شراء نبلا ولي بلا رجع وين هذا يا رب محوها ورنايا كبرنا يو وعجيب ومحا عجيب كتير واحد عجيب كتير حق عنتر أيين عدو كويسين مركان مالها فقارياش مركان سكون معنا مالها سي وانو كسو ولا سكوكو فارا waxay kamid tahay waxyaalaha la isku faano marka hablo maadaama xagga jikada u badan yihiin waxa la iyagu waxay ku taayba daruuri inamada laftigooga waxaan dii sheegayaa waxa dhacday saddex inanoo aan asxaabahayn baa waxbarasho doontay markii doonteen baa la dejiyay qolkii waa la soo dhaweeyay waa la dejiyay deetana waa laga tagay maalintii markaa aanti koowaad cuntadii waxba loo sii yar diyaariyay deetana waa la iska tagay nimankii deetana gaaja dishay maxaa kan deetana nin bay la hadlin xayawaanada daniyo meesha xaqeen maxaan cuno ku dooran aan u doonana de waxa waataydu ku jirta Faranjiyeerka cuntadiidu ku jirtay de jikadina waa taalkane de shaqaysta maxaa marka xiliyadaas waliba makaabada dadka soo barbarteena xiliyo hore oo waxa ahayd dadka inanka dharka muxuu ahayo adduunka waxa laga tagay marka in qofka shaqadiisii isaga qabanay aniga laftigeedu xiliyaan baxayo intii aan baxay waxaan soo bartay cuntooyin fara badan sida loo kariyo muddoodii aan maqnaa anigu ma karsin jiray marka runtii ana dukaanka tagaysa adaa soo adeeganay adiga waxaaga soo iibsanay deetana de si fiican baad u karsanaysa marka waxaan leeyahay khayr la siiyo wax wanaagsan ma nagu baraarujisay thaqaafada waxa bulshadeena ka maqan oo waliba leeyahay arinta aad inaad soo bandhigtaan oo waliba meelaha aynu ku soo bandhigno aqoonta jikadu waa very important waa meesha ugu muhiimsan guriga haddii reerka cuntada ka xumaato oo nolosha test ma laha marka runtii arinta aad iyo aad baan ayaan idinku dhiirigelinayaa qani iyo inanta inoo soo diyaarsayna waxa waliba maanta de casri baa la gaadhayo waxyaalaha cuntadii dheelitirka cuntada qodobka ay sheegaysay balance diet-ka waxa weeyaan waxyaalaha runtii inaga maqan waxa laga yaabaa inuu canjeero uu cuno dhinacu bay dheeli bay ku jiraan wixii way isbedeleen imaka wixii adduunku isbedelay caafimaad darro xanuunaa dhacay waxaad arkaysaa anay imaka haddaynan dadkeeni aan dib loo habeynino qaabka aan cuntada u diyaarino aan dib loogu noqonin waxa weeyaan waa
waxaa laga yaabaa in xanuunadaasi nagu sii bataan dhalinyarada aad iyo aad baan ayaan u bogaadinayaa odayaashii dee maskaxdii ka dambeysay odayaashan uu ka mid yahay cabdi daa'im runtii waan bogaadinaya iyagana aad baan u hambalyeynaya waxaanan isleeyahay insha allahu waxay noqon doontaa waxyaalo aynu marka meel la soo gaaro imanka arrimihii laabka iyo dad badan baa nagaga dayday marka haddana naga step forward inaad u qaadaan haddana mid kale keentaanna aad baan idinku mahadcelinayaa insha allahu anaguna membershipka haddii la iga aqbalo waan soo qadimaya insha allah. Assalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu.